magaalada Muqdisho ayaa baryahan ka soo cusboonaaday dhacdooyin aan u wanaagsanayn dhagaha qofka damiirka leh in uu maqlo. degmada Dharkiinlig waa degmo ka tirsan gobolka Banaadir, juqraafi ahaan waxay dhacdaa galbeedka magaalada Muqdisho. waxaa ku yaala xarumo badan oo deegaan u ah hay'adaha kala duwan ee dawladda, ha u badnaadaan kuwa ammaanka qaabilsan. wadooyinka mara degmada dhexdeedii waxaa raxraxan u mara gawaarida gaashaaman ee ciidamada dawladda. toddobaadkani gudaheeda ayaa waxaa lagu dhibaateeyay laba gabdhood oo macallimiin ah oo lagu kala magacaabo Faadumo Maxamuud Cumar iyo Fatxi Maxamuud Maxamed. dilkani gabdhahani ayaa dawladda ku eedeysay dhagarqabayaasha maleeshiyaadka Al-Shabaab. talaabooyinka caadada u ah dawladda inta badan aad ka maqashaan warbaahinta waan ku raad joognaa, waa soo qaban doonaa, uma dulqaadan doono, iyo falkani waxaa ka dambeeyay nabaddiidka. ma awoodda dawladda ayaa intaasi gaarsiisan mise xirfad xumo ayaa haysa xubnaha hoggaanka u haya ciidamada ammaanka. lagu dilay gabdhahani ayaa ahayd meel bosteeja oo gawaarida laga raaco. miya laga waayay shakhsi meesha ka agdhow oo ku dhiirada oo naftiisa u hura qabashada ragga dhibaatada geystay. hore ayuu abwaanka geesiga ahaa ee Cabdishir halhees u ahayd diiquba dawaca waa dili karaa dunida maanta. badbaadi shacabkaaga oo noqo mid wax bedela oo aan dhaliil caada ka dhigan. talo waa tii waxagta tusaalana waa tiirka tubta toosan.